asxaabta ku soo dhawaada mar kale channelkayga waa odaygii oo video cusub idin soo duubayo. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago dalxiis aan usoo aaday magaalada Bodrum ama Bodrum ee dalka Turkiga. Insha Allah waa idinla wadaagi doonaa meel kasta aan tagaayo iyo safarkeena si fiican ayaan idinla wadaagi doonaa. Waa isla socon doonaa. Let's go. Feels like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Summertime skipping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand, but there's something in the sunset feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't want. Asxaabta vlogii ayaa inoo socda. Waxaan imaanay Bodrum. Hadda waxaan joognaa markaska magaalada. Waa arkaysaan. Waxaan barbaareynaa meelo qurux badan aan imaano. Hadda hotelkaan tagnay, alaabihii aan soo dhiganay. Kadib hotelkaan ku laabanaynaa oo xoogaa nasanayna kadib magaalada soo galaynaa. Meeshaan hadda spot fiican waaye oo qurux badan tahay. Marka meelo kalena waa goobgoobeynaa. Vloggan wuu soconayaa. Vlog waaliyo noqon doona. Marka sugaysaan. Hello asxaabta, and the vlog continues. And kadib nasasho dheer kadib because aad u daalneen waa seexanay hotelkaan tagnay. Hadda soo toosnay. Hadda ayaa waxaa imaanay Shahiid markaska magaalada. Waxaan sameyn rabnaa marka sawiro ayaan galgalaynaa. Sawiro waaliyan geli doonaa. Macalay maanta iska baashaalena xaalada vloggan waxaa magaalada dhan aan ka doobi lahaa fahant sooma. Ninkaan odagaa Zakariye youtube-kayga lagu casuuma. Marka sawiro waaliyaa geli doonaa asxaabta. Arkaysan insha Allah photoshootskaas. Asxaabta sawirada markaa galgalna kadib waxaa raadsanaynaa something to eat. waxaa cunaa u baahannahay aadaa u baahanahay aniga. Tiimkaan waxaa waaye hadda hotelkan ka qadeyn aniga laakiin waa hurday xilligii la qadeynayay. Markii aan cunto helno kadib waxaa raadi rabnaa jiim aan raadinaynaa. Markii jiim aan helno waan train doonaa. Hotelka mid yar oo lahaa laakiin waxaan dhaheen waa xiran yahay camal ma shaqaynayo ayay dhaheen. Marka magaalada ayaan jiimka raadsanaynaa because waxaa waaye lama iloobi karo workout. Macalay jiim waa raadsanaynaa sooma. Caawa inaan train gareynaa full body workout sooma. waa idin soo duubi doonaa asagana workoutkaas. Jiim aan raadinaynaa horta haddii la helaayo waaye. Waa ku salaamayna walaal. wax loo sheegaya wuxuu sheegaya ma fahmo ma garad. Marka nala socod wanaagsan. Assalaamu calaykum asxaabta. marka la soo dhawaada waxaa inoo socda wili vloggeeni aan ku dhex maraynay magaalada Bodrum. Hadda waxay noqotay habeenkii ugu horeysay ayaa noqotay. xoogaa magaalada ayaan hadda aadnay sidaan idin tusayba. kadib hotelka ku soo laabanay waa casheynay waa iska yaranasanay. hadda marka waxaan soo aadnay meel noo dhow ayaan usoo baxnay oo xeeb ah sida arkaysaan yacni xeeb qurux badan waaye. Bodrum innaba caadi maaha. Night life-keeda wax kale waaye. dadka waa baashaalayaan. You see guys
People are having fun. It's so beautiful. horey waxa u aaday magaalooyin kala hore dalxiis ugu aaday waxa kamid ahaa Antalya magaalo la dhaho Alanya magaalo la dhaho sanadkii hore laakiin يعني night life kooda sahan oo kale umuusan shidnaan inta waxa u malaysaa inaba inay caadi ahayn hadda viewgas badda qarkeeda saaran wax kala waay يعني badda qarkeeda iska fariisanaysa you gonna enjoy a lot of people are here marka I hope guys inay wada raaxaysanaysiin tripkan waa la wadaagi doonaa meel walba tagno fun and enjoy the video. Hello guys, welcome back. Waa maalinkii labaad ee vloggeena ayaa inoo socda wax yar ka hor soo toosay waxaan joogaa hotelkan joognaa maanta waxaan aadaynaa boat trip dalxiis doon ah oo meelo badan isku soo marmareeno isagana clips ayaan kasoo qaban doonaa waxaa imaaday swimming poolka waxaas lahaa xoogaa yar iska dabaalo inta qoraxda la gaarayo qoraxda wax yar ka harsan tahay laakiin qabow waa jira waxoogaa maaragtay weli qoraxda soo qolaanin soo isleeyahay haddii aad qabowgan jira biyo sii gasho qabow ama ku galaa isleeyahay soo asxaabi vloggeena waa inoo soconayaa boat tripkaas maanta idinla soo wadaagaya yani vlogga waxaa rabaa inaan isku soo koobo yani 3 maalin halkan joogayna 3 maalin aan joogo meelahan tagaayo iyo waxyaabahan qabanayno intaba ayaan kusoo koobi doonaa iyo magaalada viewgeeda iyo waxyaabahaas idin kula wadaagi doonaa already waa aragteen first day insha Allah soo ahaa marka imaanay oo xoogaana sano kadib centerka magaaladii aan idin tusay oo meesha soo tagnay oo galabkii sawiro kusoo galgalnay xalay waa idin tusay markii aan night life ka soo baabaareen xeebtii aan soo aragnay so today u diyaar garooba boat trip guys, see you there. All right, waxaan soo gaarnay boat tripkii doonta ayaan soo kornay hadda ayuu bilaabanayaa boat tripka marka let's enjoy. vloggeena ayaa inoo socda boat tripka weli inoo socda hadda
haddana waxaan stop ku sameynay ama aan istaagnay Deva Beach. Deva Beach waxay u yiraahdaan meeshaan xagga waa idin tusaaya. Xagga ayaa waxaa yaala geel. geelkaasaa dadka raacayaan Turkiga marka Deva geelka Deva yiraahdaan. So xeebtan oo loogu magacdaray marka Deva Beach. So beautiful. Look around Deva Beach kan ayaan 1 hour joogaynaa. kadibna wuu inoo sii soconayaa boat tripka. waxaan arki doonaa ilaa iyo meesha la tagayo. adi maalinkan oo dhan ayuu noo soconayaa sida wada ogsoontihiin. vloggo waa 3-day trip. shalay waa idin soo duubay. So this is the second day. waa maalinkii labaad ayuu inoo socdaa tripka. So maalinkii labaad dhan waxaan qaadanaynay boat trip. doonaan soo raacnay boat party ayaa jirtay oo sida aragteen people were dancing. People were having fun. marka third day oo tomorrow ah ayaa inooga dhiman dalxiiskeena kadib magaalada Petrom vloggeedii intaas ayuu inooga ekaanayaa. Let's keep this vlog going. Feels like I've known you my whole life, but nothing more than friends this whole time. Welcome back, boys and girls, or ladies and gentlemen. And waa maalinkii saddexaad ee vloggeena quruxda badan ee magaalada Bodrum ee dalka Turkiga. Shala sida aragteen waxaan aadnay boat trip dheer oo waqti badan qaatay kaasoo na soo daaliyay dancing iyo balaahi sida loogu jiray soo xalay iyo galabkii. markaan maanta iska nasanay. So maanta ayaan baxnay magaalada aadnay shopping yar soo sameysanay. marka hadda soo aadnay banaankan runtii waxaan raadsanaynaa sida beach. qaybtan aan u jeedin waxaa la dhahaa Bites beach ayaa loo yaqaanaa. meelo badan oo kala duwan waaye. meelahan aan cunto ka raadsanaynaa. then vloggeena ayaa inoo soconayo oo meelaha kale aan booqan doonno ayaan soo arki doonaa. waxaan rabnaa meelo badan inaan booqano magaaladan because one more day aan ku darsanay. caadiyan wuxuu ahaa safarkeena inaan maanta baxna ayaa la rabay, laakiin one more day baan ku darsanay oo birta hore ayaan baxeynaa. kadib vloggan oo Bodrum waa soo aftari doonaa. I hope you guys enjoy it. Enjoy the rest of the vlog. Hold me down before I scream. More than anything I could dream. You come and take me. How are you? Welcome back, guys. Yes. And Okay. Very fun. vloggayga maxaa ka rataa macalin? macalinka waa xanaaqsan yahay. masaaj looma sameyn, aniga laga sameeyey. isaga waxaa la dhahay sug. marka vloggaygana waa ka yaaban iska socda 3 days. weliga ma arkin vlog serious la dhahay kan oo kale aad u soconaa. marka waxaa imaanay vloggan 1 million daawanas. guys like hala saaro 1 million hala gaarsiiyo vloggan insha Allah. meel masaaj ay imaana maanta waxaa waaye Turkish bath waxa la dhaho iyo masaaj aan qaadanay fresh anaga dhan raaxaysanayna. Okay guys, enjoy the vlog. We'll see soconaya.
welcome back asxaabta soo dhawaada vloggeeni ayaan soo xiraynaa waxaa inoo dhammaaday safarkeeni aan ku joognay magaalada Bodrum ee dalka Turkiga noo aragtay vlog waxyaabo badan aan idiin soo duubay boat trip ka mid ah magaalada kusoo wareegnay meelaha aan booqanay dhammaan waa aragteen magaalada se u shidneed se u kala kacsaneed marka hadda safarkeeni wuu soo idlaaday waxaan kusii wajahanahay magaalada Izmir ayadana vlog ka doonaya kasoo duubi doona marka haddii aad ka heshay vlog waxaa sugaysaa udhufa laagtaas video waxaa rabaa dad badan inuu gaaro ninkan Zakariya maxaa leedahay ka hor safarkeeni soo ahaa safar qurux badan oo aad u qurux badan qaadanay markaan kasii weelaysan kasii qurux badan oo loo dhiman yahay soo wanaagsan bye bye